hooyo ma tahay, caruur ma haysataa, iskaabula ma tahay, shaqo ma aadaa, hambeegar markasta ma iibsataa. Maanta waxaa rabaa inaan iga faa'iideeyo hambeegar yar oo macaan oona fudud ana gurigaada ku samaysan kartid, lacagtaadana aad save garaysan kartid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha khayrka leh waan islaama dhammaan inta ugu xiran. hambeegarka amaanta sameynayo waa hambeegarka freezerka ayaa gashanaysaa. haddaa qof shaqaysa aad tahay hawsha ayuu kuu yareynayaa. markaa rabtid ayaa freezerka kala soo baxaysaa. inta magaalada aadi laheyd aad kasoo iibsan laheyd. lacagtana waxaaway dhaqaalaha kastoo ma aragtaa wuu kuu save garaysmanayaa. hambeegarka marka waxaad u baahan tahay inaad kow amazonka aad kasoo dalbatid xaashimaha hambeegarka oo marka freezerka gelinaysid aad dul saaran laheyd sifo yacni uu hambeegarka hadhow uu iskaga kaa dhegdhegin. markaad freezer kasoo baxsatid tartiib leh aa uga soo baxsatid ayaad u baahan tahay. teeda kale waxaa kaloo u baahan tahay birta hambeegarka. amazon ayaa ka helaysaa asagana birta hambeegarka oo kuu simeyso oona kulli isku qiyaas kaaga dhigayso. intaas ayaa u baahan tahay. hawsha ayaan gelaynaa asxaabta qaaliga. daawasho wacan. halka waxaa ku haystaa 1 kiilo oo hilib ah. hilibkana waa hilib lo-aad. 1 qaado oo yariisa oo waxaa ku daraya cusbo ah. rootiga la qalajiyey oo kadibna la shiiday. waxaan kaloo ku darayaa parsley iyo toon aan isku soo shiiday. iyo basal aan si yariis usoo jaray. waxaan kaloo ku daraa 1 xabo ukun ah. intaas ayaa si fiican iskugu qasaysaa inay isdhex galaan. si fiican ayaa la rabaa. qaadada waa ka maarmi kartaa, gacanta ayaa isticmaali doontaa insha Allah. aniga hadda qaada ayaan isticmaalaya maadaama aan videoga duuwayo. gacanta ma rabin inaan la galo. saa u aragtiin waka waa isku soo xashtay ama waa isku soo qasay hilibka si fiican. waxaan soo qaaday birti oo hambeegarka lagu simaayay. saad u aragtiin waxaan isticmaalayaa birta jalaatada ayaan kusoo goosanaya waayo waxaan u arkay way iga fududahay inaan kusoo jarsado. qiyaastana ma aragtaa kastoo ay kulli isku mid ii noqdaan. kadib birti waa aragtiin waa isla simayaa. birta kale intaa soo qaadid ayaa dusha ka saaraysaa. kadib way kuu simanaysaa. warqada cad waxaa waye warqada loogu talagalay hambeegarka marka freezerka gelinaysid inay iskaga kaa dhegdhegin. warqadii aan u hoos dhigay. kadib hambeegarka tartiib ayaa birta oga bixinaysa. maasha Allah. soo ma aragtiin si yar oo qurux badan oo qiyaas ah ayuu kusoo baxay. maasha Allah. asxaabta saas ayaa ku wadaynaa. hadaa hooyo tahay ilmaha hambeegarka aad ay u jecel yihiin. hambeegarka guriga lagu samaysanayo ayaa aad iyo aad u fiican inaad guriga aad ku samaysatid because hilibkii oo waxaa soo gadanaysaa lo-od aha. ninka waxaa ku dhahaysaa iishiid. kadibna adiga ayaa waxyaalaha aad ku darsanaysaa. laakiin markaa isdhahdid hilibka hambeegarka waxaan kasoo iibsanayaa dukaamaha way hayaan iyagoo freezer eh. hadaa dhahdid waan kasoo iibsanaa feedka ayaa u badan ama ma aragtaa subaga ayaa u badan. waxyaalaha oo xunxun oo dhan ayay kusoo daraan. kadib markaa hambeegarka caafimaad ma aha. laakiin saan hadaa u sameynaysid wuxuu noqonaya hambeegar yar oo caafimaad leh oo ilmahaadana og tahay wuxuu afkiisa gelinaya ama ilmahaada aad la soconaysid wuxuu cunayo. waxaa adiga gurigaada ku samaysatid ayaa markasto ka fiican waxaa dukaanka kasoo iibsanaysid. marka maanta waxaaway asxaabul ilma iyo asxaabul iskaabula maanta waxaas le uga faa'iiday hambeegarkan bal ha ka faa'iidaan. waayo qofka hadduu qofka iskaabula yahna waxaaway orod ayuu ku jiraa, shaqo ayuu ku jiraa. ma aragtaa xaas oo daba soconaysa wax u karinaysana guriga uma joogto. marka waxaaway nafsadiisa isaga naftarkiisa in iska taxdira ayaa wanaagsan qofka iskaabula maku yahay. waayo iskaabula hadaa tahay daadhaad markasta banaankaa aadayaa oo banaankaa cunto kasoo cunayaa. nafsiyan kuuma fiicno, healthy kuma aha banaanka markasta aad cuntada kasoo cunaysid. teeda kalena dhaqaale ahaana meel wax kuma dhigmanayo. waa fahanteen. marka waxaa weeye qofka iskaabulaha long safar ayaa sugaya. waxaa future sugaya. waxaa sugaya inuu qofkii u guursadaa. ma aragtaa marka qofka waa inuu wax meel dhigtaa. marka qofka oo ma aragtaa iskaabula ah waxaan dhihi lahaa waxiina guriga ku samaysta bedelka a banaanka ku ordileen. waa cuntaa banaanka kasoo iibsanaysiin waa cunaysiin. cuntada basbaasa laga buuxiyo gurigii markaa imaatay cuntada adoo lacag kasoo bixisaa laga yaabaa inaa ma aragtaa cuntadii adiga gastrig a ka qaadid oona ka qaadid xanuun iyo dhibaato kale. marka guriga waxaa ku samaysanaysaa mar walba aa ka caafimaad badan.
iyadana si lamid ah hooyada waayo markay guriga ilmaheeda wax kasto ay ku tijaabisay inay ku sameyso hadaa keega guriga ku sameysid hadaa ma aragta hamburgerka guriga ugu sameysay hadaa sausage ama ma aragta guriga ugu sameysay ilmahaada waa la socotaa waxay cunayaan ilmahaada waxay afka gelinayaan waa la socotaa laakiin ilmaha waa ogtihiin wadama anaga kurbaha markaan joogno ilmaha waxay jeceliin banaanka inay kasoo cunaan hamburgerka banaankii ayaa u macaanaanaya marka hadii hamburgerkii adiga u sameysid gacantaada ugu sameysid 3 kiilo 4 kiilo hal mar soo iibso isku qaso sameyso waraaqaha soo iibso Amazon ayaa ka helaysaa ma aragta ku rastayso freezerka gasho marka ilmaha ay u baahdaan hamburger usoo bixi ma aragta 5 daqiiqo ka hor soo bixi banaanka dhig kan ovenka gali ma aragta bas faqalas chips kaadan adiga u sameynaysa baradho inta soo qaadida u jajaraysa air fry waxa la dhahay jirta oo lagu shiilo bila saliid aad u karinaysa ilmihi marka cunto waxay ku cunaan fiican oo wanaagsan oo ma aragtaayo oo healthy ah oo caafimaadkana maanta dib ugu iimaanaynin at the same time fast food uu yahay okay fast food waxa kan banaanka laga soo iibsanayo qatar weeyaan laakiin hadaa guriga ku sameynaysid more better aad uga fiican waayo hilibka guduudka muhiim uu yahay jirkeena inaan cunno ma aha hilibka guduudka aad ayuu muhiim ugu yahay inaan cunno markuu yahay beefka ariga ma aha markuu beefka yahay aad ayuu wanaagsan yahay in la cuno okay hadaa laakiin dhahdid hamburger banaanka ugu soo iibinaa beef hamburger waayo waa healthy way laakiin kana ka wanaagsan adiga gacantaada ugu sameynaysid waayo waxa ku jira ogsoon tahay marka hooyo ahaan hadaa tahay adiga naftirkaada dhaqaalaha yaa ku save grace money ama meel ku dhigmani maarta $5 aad uga soo bixinaysid maybe isbuuci 2 jeer ama maarta ama hal mar ilmaha ugu soo iibinaysa adoo guriga ku casuntida dhaanta kaalaya hadee maanta hamburger aan ii sameeyay casum ilmihi maarta u qurqurxi doorshooyinka macmacaanka wax kasta maarta hadii ilmihi loo qurxiyo ka helayaan marka intaas way daaran ka insha Allah ilmaha u qurxiyo waxyaalaha waxa gacantiina ku sameeysta ayaa ka muhiimsan ma sha Allah tabarakallah wa aragtiin hamburgerkeena laba nooc u sameeysta nooca ka kale kama gaarin inaan i tusiyo laakiin isku system isku mid u sameeyay laakiin kan kale wuxuu uga duwan yahay waxa weeye cusbo iyo waxaan ku daray filfil madow iyo rootiga maarta qalalsana oo la soo jajabiyay ama la qalajiyay iyo xabad ukun ayaan ku daray systemka waa isku mid qudrada ku jirta midna qudrad la'aan weeye marka ilmaha ma aragta isku daya inay bartiin wax qudrada ku jira inaa markasta aasiisiin laakiin sida doontiin way labada nooc ahaan waa u sameysan kartiin midna waad ka daayin kartiin qudrada kartiin waa ilmihiina ininka ugu cunaysiin inkastoo ilmaha ay muhiim u tahay naftirkooda inay qudrada ay cunaan aana bartiin ay muhiim tahay walaal qaali hadaa igu cusub tahay waxaan leeyahay iloobina subscribe ina noo saartiin aad ayaa u mahadsantihiin dadka badan oo nagu soo kordhay kanaalkeena ma sha Allah waan la socdaa jazaakallahu khayr kanaalka deeniku ma aragta kor u qaadi kartiin waa mahadsantihiin haddaba meesha aan joogno waa naga soo qaadeen reer TikTok waxaan leeyahay ma sha Allah waa shidintiin jazaakallahu khayr iyo dadkayga YouTube waan islaamay dhamaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh